gaar ahaan dhakhaatiirta iyo dadka ku shaqada leh iyo ciddii u baahanba inaan iibinayo oo aan u iibinayo dhaqaale burburkaan ugu yimiday awgeed aan u iibinayo kelidayda. bilooyin hore halkan waxaa ka shaqaynaya ku dhawaad 30 meeyo qof oo ay ku maareynayeen masaariifta qoysaskooda. ha yeeshee hadda waxaa dhex socda oo kaliya Xasan Maxamed Cabdilaahi Shiniile oo ah muwaadin dhaqda Shinida. isbedel abaareed sixir barar iyo waliba saameyn ka dhalatay buufitaanka ayaxa caabuqa coronavirus iyo isbedelka cimilada ayaa markaliya shilfaha u laabay ganacsiga iyo shaqadii baaxadda lahayd ee ka socotay beertan oo ku taala duleedka magaalada Gabiley. shaqaalihii dhammaantood way ka dareereen. xasan maxamed cabdilaahi ayaa ka dayrinaya xaaladda soo wajahday ganacsigii dhaqashada Shinida oo ku dhawaad 25 sano ka shaqaynayay, wuxuuna hadda go'aansaday inuu kalidiisa u iibiyo si uu helo dhaqaale ku soo kiciyo mashruucii dhaqashada Shinida ee dhibaatadu ka soo gaadhay buufitaanka ayaxa. telefishanka Sahan oo ku urgalay saameynta ka dhalatay buufitaanka ayaxa ayaa waxaan soo aragnay Shinidii oo meydadkeedu ay ku manaan kor u dhaafeen. xasan Shiniile oo kan iyo tabay baaqyo kala duwan oo xukuumadda iyo dawladda hoose degmada Gabiley u diray ayayna dhag jalaq u siin. taasi ayaa keentay inuu ku dhawaaqo iibka kalidiisa waa siduu hadalka u dhigay. aniga magacaygu waa xasan maxamed cabdilaahi. in badan ayaan ka soo shaqaynayay Shinida, waxaan ku noolahay magaalada Gabiley. kadib waxa horta waxaan u mahad celinayaa Ilaahay, marka labaadna TV-ga Sahan sida mutadawacnimada aan ugu shaqeeya aad baan ugu mahad celinayaa. kadib waxa uu maanta igu soo booqday beertayda Shinida iyadoo ay waxyeelo xoogi soo gaadhay, taasi oo ay saameynta ay nagu keentay sixir bararka iyo COVID-19 anaga oo la xarbeena ayay waliba anaga noo dheer tahay musiibadii ayaxa lagula dagaalamayay ayaa anagana saameysay. oo waxa weeyaan waxaad maqasheen nuclear ayaa lagu dhuftay Hiroshima. anaga waxa weeyaan maadaama oo cayayaan wax cayayaana aan wax soo saarka iyagu ahaa oo ku tiirsanaa maanta waxay saameynta ugu xun waxay naga soo gaadhay ayixii la buufinayay. marka xukuumadda si fiican ayaanu imise jeer ula hadlay oo aan idhi balbaaqa ka soo hadla. halkan waxa yimiday iskudugaha beeruhu markuu yimiday isagoo oo wafti la socda waxba kama soo jawaabin. waxa kale oo yimiday iskudugaha xanaanada xoolaha ee gobolka Gabiley wuxuu yiri si degdeg ah ayaanu uga soo jawaabaynaa, wax jawaaba kama hayo. waxa weeyaan xukuumadda baaq badan ayaan u diray mar hore iyo mar dambaba, laakiin way nagu dhaga adkaatay. maadaama ay xukuumaddii nagu dhaga adkaatay waxaan u baahannahay inaanu bulshada u soo bandhigo fikrad gaar ah oo aniga igu dhalatay, taasi oo ah inaan maadaama oo mashruucii aan muddada 25 sano ah ka soo shaqaynayay mar qura ay waxyeelo xoogi soo gaadhay oo dhaqaale burbur nagu yimid, iyadoo ay dad badan ka shaqaynayeen dhowr iyo 30 qof maanta ay zero marayso. waxaan u baahanahay inaan u soo bandhigo bulshada gaar ahaan dhakhaatiirta iyo dadka ku shaqada leh iyo ciddii u baahanba inaan iibinayo oo aan u iibinayo dhaqaale burburkaan ugu yimiday awgeed aan u iibinayo kelidayda ayaan iibinayaa. waana dila soo xiriiri doontaan insha Allah taala. lambarkaygana waxaad ka heli doontaan TV-ga maanta soo deynaya warbaahinta. waanan iibinayaa kelidaasi waa iib, waxaanan u iibinayaa dhaqaale burburkaan ugu yimiday awgeed maadaama ay naga dhaga adkaatay xukuumaddii aanu u hanka weynayn een wax kastaba u soo bandhiganay. qaar ahaanna waxaan ku noolahay magaalada Gabiley. gobolka dhowr jeer ayaan u qortay waraaqihii walaa xaaga igamay qaban. xitaa waxaad ka sheekeynaysaa jawaab ay ka soo jawaabaan xitaa igamay qaban, oo albaab laga galiyo albaab laga soo baxo ma leh, way xidheen albaabadii. marka wasaaradiina taasay noqdeen oo laba wasaaradood oo quraan arkay, labadii wasaaradoodna wax jawaabay may siinin. sidaasi la ajligeed waxaad ogaataan oo aan u sheegayaa ummadda afka Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan ummadda Somaliland inaan iibinayo xabad kaliya oo aan u iibinayo dhaqaalahayga burburay awgeed. saasaad ula soconaysaan insha Allah. waxaan u iibinayaa waxa weey maadaama oo anigu aan ahay nin ganacsada oo ka soo ganacsanay muddo dheer Shinida, waxaan ugu talagalay inaan duruuftii maadaama ay ku soo kaliftay imika masaariifii guryaha ay noo soo gashay intay soo dhaaftay dhaqaalahayagii, waxaan ugu talagalay inaan qoyskayga aan dhaqaale ugu sameeyo iyo dhaqaale aan ku soo kiciyo Shinida. saasaan ugu talagalay inaan iibiyo kelida. iyada dawladda hoose bishii waxaan u tagay intii aanan doorashada dhicin golayaasha deegaanku warqad baan ula tagay
wuxuu igu yidhi maanta waa la iga xidhay mashruucaasi oo wax soconaya maaha waan ka soo baxay kadib haddana warqad kale aan qortay markii la doortay kadib weli hadda albaabka lama mari karo oo waxaa la dhigtay inamo yaryar oo annaga naga yaryar dee markaa inamadii yaryaarna ma wada marmi karno dee waan iskaga imiday saasi laajligeed baanan maanta meel aan kale oon u ciirsado markaan waayey waxaan doonayaa inaan iibiyo kelida oo aan u iibiyo aafadaan nagu dhacday awgeed waa Jacfar Cawil Hereeri telefishinka Sahan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley